marka aan ka hadlayno maxay ahayto intriga inta u qaybsamo type of intriga wuxuu u qaybsamaa laba nooc oo qaybsamaa inuu yahay content inuu yahay iyo inuu impulsive yahay hal mar moodka geli waxaa dhawaaqaya marka okay labadan u qaybsamaa kan waxa uu yahay suuq micnaha u soo socdo suuq sel u socdo marka buy u qaadanayso oo jihadii oo u socdo maahana jiha kale u qaadanayso waxaa la yiraahdaa counter trend micnaha waxa waaye trade kala wareegayo jihadii oo u socdo maahana jiha kale u qaadanay tusaale ahaan wuxuu u socday sel buy u qaadatay asoo micnaha intriga qaabka u geli doonto iyo micnaha maxay ahaato waa ayada waa baab gooniya laakiin labada nooc oo horta intri loo qaato waxa uu yahay inaad suuqan u qaadato asoo sel u socday inaad buy u qaadato oo counter tradingaas aad ku qaadato ama in aad ku qaadato suuq sel u socday nasashow sameeyey wuu sii socday tanna waxaa la yidhaha impulsive entry waa suuq hoos u socday oo aad sii raacday jihadii oo u socday suuqa u raacday iyo suuq aad u raacday jihadii oo u socday maahana jiha ka duwan oo kasoo horjeedo labadaas u kala baxaa waa counter trade ama impulsive entry labadaas nuuc horta u kala baxaa marka entry laga hadlayo labada nuuc ugu waaweyn waa haddaa marka asaga gudaha usii galno kale kaba soo qaadoo kale suuqa wuxuu u socday sorry wax yar okay suuqa wuxuu u socday sel u socday okay suuqan selka u socdo marka ugu horeyso oo buy oo candle buy soo baxo hadii istiraatiijiyad aad ku qaadanayso istiraatiijiyad badan aan soo qaadanay laakiin muhiimadda rabaa inaan isla aragno suuqan selka u socday marka u qaadanayso buy marka which buy u qaadanayso maxaa la dhahaa ila suuq waa kasoo horjeedaa buy u qaadanaysaa counter trade yaa la dhahaa waa trade kala wareegayo reversal way dhahaan counter trade way dhahaan waa suuq kala wareegayo micnaha okay suuq sidiisa u socdo markii aad qaadanayso okay okay suuqa wuxuu noo sameeyey nasasho sameeyey waa soo arag nasashada iyo qaabka ay noqon karto iyo okay candleka kaloo dhashay okay labadan maxay noqonayaan wixii kor u socdo green okay calaamadda way dhibaysaa okay iyo inaad suuqan usoo qaadato dhinacii u socday hadda intaa misla fahna micnaha waxaa waaye laba nuuc oo u qaybsamaa intriga inuu counter trade yahay oo suuq jiho u socday jiha ka duwan aa u qaadanayso iyo suuq socday inaad sal usii qaadanayso oo jihadii u socday aa u qaadanayso labadaa nuuc oo horta intriga ugu waaweyn u qaybsamaa labada ugu waaweyn horta intri usii oo kabacdi hasii kala baxo laakiin labada ugu waaweyn oo suuqan intri waa labadaas nuuc marka intriga laga hadlayo suuqa inuu counter trade yahay iyo inuu impulsive entry yahay wax ka dhexeeya ma jiraan okay haddaa gudaha u galno markii aan qaadanayno
content trendka maxaan ka fiirinaynaa content trendka marka aan qaadanayno waxyaaba aan ka fiirinayno waxa ay tahay tusaale ahaan kandhalkan oo kale waa 30 minute aan joognaa kandhalkan oo kale wuxuu noogu xirmay buy xataa kandhalkan micnaha ma la rabo inuu saan oo kale noqdo kandhalkan oo kale waa inuu kandhalkan wax yar ka yaraado waa inuu saas oo kale noqdo sida ugu fiican aan ka hadlaa moogta kandhalkan oo kale buy noogu xirmay weekiskan fiiriya weekiska waa la iska ilaaliya weekiska kandhalkan lama rabo inuu weekis dheer noqdo oo saas oo kale ah week fila la dhahaa waa la qaataa oo hadda kandhalka kan ku xigoo kale halkan markuu ka furmo kale ilaa halkan oo kale waa la dhahaa suuqa ilaa week filkan uu gaaraa waa tegaynaa oo cashir gooniya ka sameynaynaa asaga week filka iyo qaababka looga faa'iideysto laakiin muhiimadda waxaa rabaa suuqa markii aad contract qaadanayso inaan isla aragno qaabka interviews oo noqonayo suuqa wuxuu kugu soo socday jiho sel ah wuxuu kuu sameeyey suuqa week kaba soo qaado kale weekuu soo sameeyey suuqa weekiskaana lama rabo inay weekis dheer noqdaan oo saa'id u dheer oo noqdo lama rabo boodigaana inuu boodi weyn noqdo lama rabo waa in weekiskan at least oo meelahan oo kala tago weekis macquul noqdo muhiim ma ahan inta badan inuu weekiskan muhiim saas ma aha laakiin marka aad qaadanayso suuqu kala qurux badan yahay weekis ku gaaban oo halkaas oo kala joogo in ilaa kandhalkan markuu buy kugu xirmo nakasta kandhalkan xigo markii uu soo qaato week oo week hoose soo qaato sida aan soo baran cashar ku soo qaadan kandhalkan markii uu halkan ka furmo intuu ka furmaa kandhalka halkan uu ka furmaa okay halkaas ma uu ka furmo hadduu tooskan iskaga baxo ma qurux badno qaadashadiis waa la qaataa laakiin ma qurux badno inta badan waxaa laga yaabaa in week kugu soo qaato stop losski halkan dhigatay la yimaado haddii uu maaragtay suuqan uusan tixgelin last low in stop losska lagaaga dhaco okay entry uu macquulsan waxa waaye inuu week kuu soo qaato markuu weekan kuu soo qaato kandhalkan halkan ka furmo weekga la doonto markuu week doonto kandhalku soo noqonaa red oo noqonaa guduud oo noqonaa okay mar allaala markuu sii bedelayo oo saa isku bedelayo week soo qaato adiga waxaa soo qaadanaysaa calaamadaada buyga waa sii diyaarinay suuqa mar allaale marka uu weekan soo qaato weekan uu soo qaato oo sii bedelayo markuu isbedelayo soo noqonaa wuxuu noqonaa green mar allaale markuu halkaas mara adiga tradekan waa ku jirtaa markaan diyaara ay leeyahay moogta diyaara ahayd tradekan waa ku jirtaa stop losskaadana waxa waaye last candlekan waxa waaye lowgiisan waa kaba soo qaadba inuu 15 bib yahay ama 20 bib 15 bib hadduu gold iyo kale 20 wuu kuu noqon karaa haddii beerarka kale oo yahana 15 ilaa 15 waa macquul 10 15 waa macquul laakiin gold iyo kale 20 sometimes 30 wuu noqon karaa gold okay marka kandhalka markuu weekan soo qaato guduud uu ahay oo isbedelo oo cagaar isku bedelo halkaas markuu maraa suuqan adi already waa ku jirtaa suuqan meesha aad target gareynaysana waxa waaye meel suuq oo ka sameeyay resistance ka sameeyay kaba soo qaado kale meeshan sell kandhalka ugu dambeeyo buyda oo kale meesha ka furmo halkaas aad target gareynay inta badan suuqa marka meelaha aad targetka ku ah oo aad target gareynaysa markaa gasho oo intrigeeda aad ku base gareynaysa waxa waaye resistance kugu horeeyo ama supportka kugu soo sokeeyo markaa suuqa gasho weekisaa jiro ayadana gooni iskula fiireynaa meelo badan suuq oo rejection ka sameeyo laga celsho kale point way noqon kartaa laakiin inta badan qaabkaana content trade-ka looga faa'iideystaa saaxiib yaal ma fahanta marka waxaa sameynaysaa markii kandhalkan oo kale oo kuu furmo kale oo haygan kuu jabiyo kale oo kuu xirmo kale kabacdi management yaa sameynaysaa ayadana management cashir gooniyo waaye laakiin muhiimadan waxa waa intrigan oo kale qaabkaas uga faa'iideysanaysaa markii uu content trade yahay oo haddii kan uu kandhalsan u buuran yahay ani ma jecli mana qurxana run ahaantii kandhalsan u weyn oo kale marka uu yahay baayigiisa ma qurxan laakiin kandhal qaab noocaana kuu noqdo weekiskan caqabada kuu noqon karaan weekis normal yahay oo macquul yahay suuqaas content trade ahaan waa u qaadan kartaa haddadan waxaa sameeyay
haddaan fiiri waxaa sameynaya goldi, hadda waa kana fiiri, hadda waxa cashar ku bixeen haddan goldi aa sameynaya. fiiri suuqa inta u socday, suuqa xagga u socday, suuqa xagga u socday, sel kandhalkaanaa furmay, kandhalkaanaa furmay, kandhalkan waa kandhal wax sheegayo waa 30 minute meeshaan joogno. kandhalkan waa kandhal sheegayo buy in la aadaa. conti trade, tradekan camal aa la dhahaa. qofkii halkan oo kale tradekan ka galo oo buy dhaho oo yiraa stop losska waxa ay dhigtaa last low kandhalkan. okay haddan kandhalka hadda meequu socdaa, wuxuu socdaa 30 bib, already 30 bib baa la siiyay. 30 bib haddaa hesho suuqan ina be imaato oo meesha ka gasha aad keento stop losskaada, kabacdina aad tradekan half qaadato, halfka kalena aad dhahdo okay ha ii tago micnaa ilaa weekiskan sugaa, weekiskan ha ii tago ilaa 50 bibkaas aan qaadana ahayn ilaa resistance kore suuqa ma soo buuxi karaa oo ma tegi karaa imbalse ahaan ma ku imaan karaa ilaa halkan. waa qorshe kale, waa macquul inuu imaado ilaa halkan la imaado suuqan, ilaa halkan haddaa qaadatan waa macquul. laakiin ana muhiimadan hadda managementigaas uma socnee, trade managementiga waa isla arkaynaa, waa isaga meer gooniya ka dhigaynaa. laakiin muhiimadda waxa waa anaga conti trade-ka qaabka u qaadan karto. suuqan waa kasoo horjeedaa, suuqan hadda silow u socdaa. ti haddaa fiiriso teti, haddaa fiiriso 1 hourka intuba waxay sheegayaan suuqa inuu sel yahay. fahanti sel buy, candle buy aa dhasho 1 hour. laakiin anaga meesha ku manage maaragtay aan ku base garanayn waxa waa 30 minute. 30 minute wuxuu noo sheegaa inuu support sameeyo, supportka muxuu noo sheegaa suuqa in kor la aado. okay marka waa kaasaa, marka suuqa conti trade-ka qaabkan loo qaataa. suuqii sel u socdaa laakiin adi buy u qaadanay, micnaha suuqa waa kasoo horjeedaa. in hadda lagugu dhufto oo buy sel lasii wataa wax micnaha ma soo kordhinayso, micnaha wax weyn lama aha suuqa inuu hoos sii aado, sababtoo suuqan awoodiisa hoos u socoto. marka in stop losska lagaga dhaco hoos lasoo aado waa u dhowdahay. conti trade-ka marka trade-ka noocaana conti trade la dhahaa. suuqa jiho u socmaa jiha kale loo qaataa. okay qaabkan kale marka aan isku imaano qaabkan kale. qaabkan kale saaxiib yaal waxaa la dhahaa impulse entry. impulse entry maxaa tahay asagana waxa waaye suuqa wuxuu u socdo hoos, wuxuu sameeyay nasasho. nasashada fiiri, nasashada waxay noqon kartaa ayadaa kala bixi. nasashada waxay noqon kartaa saaxiib yaal in nasashadu ay gaabato oo inta suuqan hoos u socday support kana la sameeyay. supportka marka la sameeyo kala desaan oo kala haday dhacdo ka waran, kan iga tir, kan iga tir, kan iga tir. okay saaxiib yaal saan oo kala dhacdo fiiri, saan oo kala dhacdo suuqan halkan ku furmaa sooma. okay meeshaan ii dhig. okay suuqan halkan ka dhalaa dhashay, nasasho ku jiro suuqan sel u soo socda, halkan ka dhalaa dhashay. kandhalka markuu oo dhashay oo buy noqday, kii kale buy ma noqone, kii kale sel noqdo wuu soo jabshay. mar allaala markuu meeshan soo jabsho oo kandhalkan la soo jabsho, meeshan areadan la soo jabsho oo meeshan ay sel noqoto oo areadan la soo jabsho oo kandhalkan uu soo jabsho, ani maxaa sugaa inaa bartaan ka qaato suuqa oo aan sel ka dhaho oo stop losskayga aan ka dhigto last candle weekiskan meeshaan oo kale may noqonayso weekiskan. okay iga daa, kan iga tir, week kanaan week ka dhigaa. sorry saaxiib, kana week ka dhigaa, dhexda iguma qormayso, sorry dhexdaas inay ugu qormantaa rabi. amase waxaa sameyn karaa kan isike, kan isike, kan isike, kan isike siyaa weekiskan. okay kandhalkan oo kale markuu uu red ku xirmo oo guduud ku xirmo, kana buy ku xirmo mugta, kana guduud ku xirmo, meesha waxay noqotay supportkii kor looma sii aadin, waa la soo jabshay. suuqaana waxaa ogan inuu sel u socday. halkaasoo kale suuqa inaa ka qaadato oo last candle weekiskan, last candlekan stop losskaada dhigato oo suuqa saan usoo raacdo. maxaa la yidhahdaa intrigan impulsive entry. suuq sel u socday sel usii raacday, jihadii oo u socdaa usii raacday, maxaa la dhahaa impulsive entry. kanna maxaa la dhahaa conti trade. labadaas u kala duwan yihiin suuqan. labada entry oo ugu waaweyn suuqan labadaas waay. mar walbana labada arki doonto labadaas waay. inaad suuq jihadu u socdaa u raacdo iyo inaad kasoo horjeesato labadaas wax ka dhexeeya male. marka entryga type of entryga marka aan fiirino
confirmationadu waa gooni ana hadda kana xoogaa ku dheeraada oo aan gudaha u galay waxyaabaha laga raba iyo waxyaabaha ka sugayna iyo waa entry of confirmation waa gooni confirmation of entry waa cashir gooni ah trade management waa cashir gooni ah type of entry-na waa korad ka fiirisa qaybaha entry uu kala baxana waa cashir gooni marka qaybaha entry uu kala baxo labadana ugu waaweyn anaga hadda 4 nuuc soo aragnay 4 nuuc hore soo baran laakiin 4 nuuc waxa ka horeyso labadan nuuc marka aragto ka bacdi 4 entry aan baranay gudaha u galaysaa marka waxaan rajeynaa in inta isla fahanay saaxiibayaal maxayna wixii aan ka qabno marka su'aalahan hadda marka isweydii karnaa waxaan isku dayaa marka inaan kan xiro kaadi stop ki